ismaqal iyo daawasho wanaagsan waa markani qodobadii ugu xiisaha badnaa Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah meydka sarkaal ka tirsan AMISOM oo laga helay xerada Xalane. Ra'iisul Wasaare Kheyre waxaa looga fadhiyaa magdhow dadkii lagu dilay Baydhabo. Natiijadii doorashadii Axmed Madoobe lagu doortay oo maxkamad lala tiigsaday. Farmaajo oo markii ugu horeysay ka qayb galaya shirka golaha guud ee qaramada Midoobe. Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya oo u ambabaxay Addis Ababa. Ra'iisul Wasaare Kheyre oo Baydhabo kula kulmay safiiro wakiilada caalamka u fadhiya Muqdisho. Waare oo kulan la qaatay saraakiil gaartay magaalada Beledweyne. Waa qodobadii ugu door corona warkeena markani u diyaar garooba ayagoo intaasi ka faahfaahsan. aynu ku bilowno meydka sarkaal ka tirsan booliska AMISOM gaar ahaan ciidanka Uganda ayaa sabtidii laga helay xerada Xalane ee magaalada Muqdisho. Sarkaalkaasi oo kaliya ah ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay Edward Buganza sida uu shabakada BML Daily u xaqiijiyay. Grace Turgumanawe oo ka tirsan AMISOM lama oga ilaa hadda sababta rasmiga ay ka dambeysay dilkiisa, balse waxa uu sarkaalku sheegay in meydkiisa laga helay guri uu ka deganaa xerada Xalane oo ahaa taliska guud ee ciidanka nabad ilaalinta ururka Midowga Afrika ee AMISOM. waxaa meydkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaalo Muqdisho sabtidii, ayuu yiri Grace oo aan faahfaahin ka bixin sababta dilkiisa. Taliska ciidanka AMISOM ayaa haatan wadaa qabanqaabada aaska sarkaalkaasi. dhacdadani ma ahan tii ugu horeysay, waxaana horay gudaha Xalane isku dilay dhowr askari halka kuwa kale ay ku dhinteen iska hor imaadyo ka dhacay xeradaasi. Howlgalka AMISOM ayaa waxaa ciidamo ugu badan ay ka socdaan dalka Uganda oo askar badani looga dilay gudaha Soomaaliya. Madaxweynaha dib loo doortay bishii hore ee maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa la tiigsaday maxkamad iyada oo loo diidan yahay natiijada doorashada lagu soo doortay. Cabdullaahi Axmed Ibraahim oo ka mid ahaa musharaxiinta loo diiday in ay ka qayb galaan doorashadii ka dhacday Kismaayo iyada oo codsi u diray maxkamadda gobolka Jubbada Hoose, wuxuuna guddi doorasho ku eedeeyay in codbixinta loo qaban sidii uu qabo dastuurka Jubbaland. Tallaabada uu qaaday Cabdullaahi Axmed Ibraahim ayaa ka dhigaysa markii ugu horeysay taariikhda tan iyo xornimadii Soomaaliya in doorasho maamul goboleed loo gudbiyo maxkamad. Cabdullaahi Axmed Ibraahim ayaa qareenadiisa amray inay Axmed Madoobe oo doorashadiisa ka dhacday helay 56 ka mid ah 74 xildhibaan oo codeysay lagu soo ogaa ilaa 3 arrin oo kale ah sida loo aasaasay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha, shuruudo adag oo la holdhigay musharaxiinta si looga hor istaago in ay tartamaan, iyo hanjabaado ay la kulmeen musharaxiinta. Cabdullaahi ayaa sheegay sidoo kale in uu Axmed Madoobe gacanta ku dhigay 7 xubnood ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha, taas oo ku sheegay in ay ka soo horjeedo qodobka 94 farqadiisa 4 ee dastuurka Jubbaland. Waxa uu kaloo sheegay in uu Axmed Madoobe isaga guddiga u maareeyay shuruudaha la hordhigay musharaxiinta, taas uu ku tilmaamay mid aan dastuurka waafaqsaneyn. Qodobada aadka u adag oo ay musharaxiinta Jubbaland cabashada ka muujiyeen ayaa waxaa ka mid ahaa musharaxiinta lagu xiray in ay bixiyaan ilaa $3,000 oo isdiiwaangelin ah, in aysan hayn xildhibaan iyo mid wasiir, iyo sidoo kale in ay musharaxiinta Soomaaliya ku sugnaayeen 2 sano ee ugu soo dambeysay. Wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa shaaciyay in sanadkani markii ugu horeysay uu madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu qayb galayo shirka golaha guud ee qaramada Midoobay. Wasiir Jamaal oo ka warbixiyay shirka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wakiilada beesha caalamka ku yeesheen Baydhabo ayaa xaqiijiyay safarka madaxweynaha magaalada New York. Sidoo kale wasiirka qorsheynta ayaa xusay in ay dawladdu u diyaar garoobayso shirka qaramada Midoobay iyo midka kale oo ay bilowga bisha soo socota yeelan doonaan Soomaaliya iyo beesha caalamka. Madaxweynaha ayaa la filayaa in khudbad uu ka jeediyo shirkani oo ah kii 74 ee golaha guud ee qaramada Midoobay, wuxuuna uga hadli doonaa arrimaha amniga, dhaqaalaha horumarineed ay hiigsanayso dawladdiisa iyo doorashada 2020-2021. Madaxweyne Farmaajo ayaa aanan shirkaasi ka qayb gelin tan iyo markii loo doortay madaxweynaha Soomaaliya sababo la xiriira dhalashadiisa Mareykanka uu haystay. Shirka guud ee qaramada Midoobay ayaa ku soo aadaya iyada oo 1 Agoosto ee sanadkii 2019 uu madaxweyne
madaxweynuhu dib u iskaga celiyey dhalashadii uu ka haystay dalka Mareykanka. Hogaamiyaha mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hadlay socdaalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku joogo magaalada Baydhabo ee xarunta maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Facebook ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Kheyre looga fadhiyo in uu garawsiiyo magdhow ka bixiyo dadkii lagu dilay magaaladaasi 13 ilaa 15 December ee sanadkii hore ee 2018. sidoo kale wuxuu tilmaamay in looga baahan yahay in uu fuliyo ra'iisul wasaaruhu ballantii ay gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen ay wadajir ugu qaadeen shacabka odayaasha deegaanka. ra'iisul wasaaraha waxay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Koonfur Galbeed uga fadhiyaan in uu garawshiyo ka bixiyo kadib magdhow dadkii sanadkii hore 13 ilaa 15 sanadkii tagay lagu laayay Baydhabo, fuliyana ballantii ay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo wadajira ku qaadeen shacabka iyo odayaasha dhaqanka deegaanka, ayuu yiri siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. rabshadihii ka dhacay Koonfur Galbeed xilligii doorashada ayaa waxaa ku dhintay 13 qof kadib markii la soo xiray Sheekh Mukhtaar Robow oo ka mid ahaa musharaxiinta maamulkaasi. wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, wuxuuna la kulmi doonaa kooxda wadahadalka deyn cafinta u qaabilsan hay'adda lacagta adduunka IMF, waxaana laga wadaa xoojin doonaa wejiga afaraad ee barnaamijka deynta cafinta Soomaaliya. ujeedada kulanka ayaa ah in si gaar ah looga wada hadlo wixii wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ay qabatay 3 bil ee la soo dhaafay, shuruudaha ku xiran wadahadalka deyn cafinta wejiga afaraad. sidoo kale waxaa wadahadalka dhanka xukuumadda Soomaaliya qayb ka wasiirka qorsheynta iyo gudoomiyaha bandhiga dhexe ee Soomaaliya. ka hor kulamada wadahadalka deyn cafinta, wasiir Beyle iyo wafdigiisu waxay kulamo gooni ah la qaadan doonaan madaxda hay'adaha dhaqaalaha caalamka iyo qaar ka mid ah wadamada deymaha ku leh Soomaaliya, waxaana kulamadaasi looga hadlayaa sidii Soomaaliya loogu cafin lahaa deymaha lagu leeyahay. wasiirka maaliyadda mudane Beyle ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey wadahadalka ay la galeen IMF iyo guud ahaan in Soomaaliya laga cafiyo deymaha lagu leeyahay marka uu soo gabagaboobo wejiga afraad ee wada xoojinta deyn cafinta. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa kulan gaar ah la qaatay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo xalay gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. kulanka oo ahaa mid xasaasi ah isla markaana qaatay saacado badan ayaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga iyo dadaalka ka dhanka Al-Shabaab. ugu horeyn waxaa shirka warbixin looga dhageystay taliyaha qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Cabdicasiis Cabdullaahi Qooje oo marka hore ka warbixiyey ujeedada socdaalka iyo sidoo kale howlgallada ka socda gobolada dhexe. taliyaha ayaa sheegay in ay diyaar garow xoogan ugu jiraan howlgallo cusub oo Al-Shabaab looga saarayo guud ahaan maamulada Hirshabelle iyo Galmudug. dhankiisa madaxweyne Waare oo kulanka ka hadlay ayaa ku booriyey qaybaha 27 iyo 21aad ee ciidanka xoogga dalka in ay yeeshaan wada shaqeyn dhab ah isla markaana ay meel uga soo wada jeestaan dagaalka adag ee lagula jiro Al-Shabaab. gobolada dhexe ayaa ka mid ah meelaha ay sida aadka ugu xoogan tahay Al-Shabaab oo inta badani weeraro ku fuliso goboladaasi. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa kulan looga hadlay waxqabashada baahida ka jirta deegaanada Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo kula yeeshay safiirada dalka saaxiibka la ah Soomaaliya iyo wakiilada hay'adaha caalamiga ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho. ra'iisul wasaare Kheyre oo qorshaha socdaalkiisa Koonfur Galbeed uu salka ku hayay horumarinta adeegyada bulshada iyo amniga ayaa safiirada u sheegay in lagama maarmaan ay tahay in ay qayb ka qaataan qorshaha horumarinta Koonfur Galbeed. madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen oo ra'iisul wasaare Kheyre ku weheliyo kulankani ayaa soo bandhigay qorshayaasha horumarineed ee bulshada iyo sida ay lagama maarmaanka u yahay taageerada barnaamijkani wax ku oolka ah ee laga filayo caalamka. wakiilada iyo safiirka kulanka qayb ka galay ayaa ra'iisul wasaare Kheyre ku ammaanay dadaalka uu ugu jiro dib u kabashada dalka, waxayna ballan qaadeen in dowladda goboleedka Koonfur Galbeed ay ku taageerayaan qorshaheeda horumarineed. shirkani oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa sidoo kale looga hadlay diyaar garowga shirka iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka oo dhawaan lagu qabanayo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.